بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأيدين سلامي ولا لهي خالق أمل بأجوكتين سودا وهذا ومركل فيديو كل عصب أصحابتي شرفت له قيمة قدرنت إجمودا وحايدين رجينا يا بش إبرواخو إن أكونوا لاتين مل بأجوكتين شرط إشيدان كان إلهي كل جنب هنجح حجابه مل بأجوكنا ما أنت قصد أن نوضو وحي كان على ضد السعودية العربية وويل جعلاضي جبر أي نشها برتيس gabadhii waxaa la wiilka habarta uu ku jecel yahay wuxuuna dhahay haday idiido waa isdili doona tabcan markii loo sheegay idiid ka bacdi way asna wuxuu dhahay hadaysan irabin nolol iyo taalo waa isdilaa gabadhan sababta ay ku diido waxay ahayd in uu miisaankiisa 200 oo kiilo ahay shaqadu ka shaqeynayeen ay ahayd shaqo waardiyanimo uusan lacag fiican haysanin wiil faqiir uu yahay quruxna uusan lahayn laakiin waxaa la dhahay wuxuu ballan ku qaaday hadaa diidid inuu isdili doono haduu isdilane adiga uquba ka soo raacayso iyo nafsi xaqiis ugu daba kacayo ishiisa ka soo baxayso waxyaabo badan adiga gabadhii lagu tashkiiliyay markii ay ogolaatay wiilkii ay saaciday dabcan markii ay ogolaatay ay guursatay oo ka saaciday sidii miisaankiisa u dhimi lahaay shaqo fiican ilaahay u sahlay nin lacag haysta oo noqday wiil qurux badan oo noqday miisaankii ama cayilkiina uu ka dhacay uu ku soo baxay wiil qurux low ah abaalkeed ugu horeeyay wuxuu ka dhigay inuu naag labaad la guursaday waa gabadhii nafteeda u ilooday ilmaheeda ilooday asaga habeen iyo maalin ka daba ordaysay sidii miisaankiisa u dhigi lahaay wadamo badan la soo martay markuu is arkay inuu qurux badan yahay shalay qofku ahaa iyo maanta qofku yahay uusan islahayn lacagna uu helay markaan uu shaqaystay tilaabada ugu horeysa uu qaaday waxay ahayd inuu naag guursado waa qiso yaab leh qof walbana waxa waajib ka saaran qisadan inuu comment u qalma ka soo bixiyo insha Allah qaylaha daa maqashiina banaanka way iska sabra asxaabtay sharafta la qisada inta ugu dagalin ka hor waxa iga barateen in asxaabta loo duceeyo oo isku duceeyno ilaahay kulligeen baqeyrkana waafajiyo dad badan ma ahan kiskisa u soo qaadanaya ina qisooyinkayga bilaaban igu soo duceeyay culays fara badan ay saarto gabar waxay i weydiisay عنبر مكة waxay dhahday inteen kala soo xiriiray canabay hadda ka bacdi waxaan sameeynaa Instagram-ka inta idin soo saaraya qof alla iyo qofka Instagram qabo ha igala soo xiriiro ama Facebook qabo Facebook iyo Instagram-kayga hal sawir ayaa i saaran Aanab Maxamed ayaan iigu qoran sawirka inta soo saari doona Hibaaq Maxamed Hibaaq waxay tii soo duceeya hooyadii ayaa sokor lagu sheegay anigana waxay tir culays fara badan ayaa isaaran marka waxay tir faatixada noo soo mara inuu ilaahay hooyada ii caafiyo anigana culayska faraha badan ilaahay iga qaado waxa ku xigo habi fani waxay tiri ducadiina ayaan u baahanahay arrimo badan ayaa isaga xirxiran marka u soo duceeyo inuu ilaahay arrimaheeda u fududeeyo insha Allah waxa ku xigo umu amira waxay dhahday quraan xifdis ayaa ku jira inuu ilaahay ii fududay ii soo duceeyo waan noo soo gaagaabiyay haddana waxaan gudagalaynaa qisadeeni laakiin marka hore fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay channelkii uu soo gaaro subscribe ii saar like ii saar si asxaab fara badan igu gaaro iyo si share garay haddii aad ii awoodid aan ku salina marka hore nabigeena suuban calayhi afdalu salaatu wassalaam allahumma salli wa sallim wa barak ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo dhawaada walaalahayga qaaliga ah qisada waxay ka dhacday dalka Sacuudi Carabiya gabadhan waxa maalmaha kamid ah soo wacay telefoonkeeda gabadha waxay gabar jaamacad dhigato waxa soo wacay telefoonkeeda wiil ay habarteed dhashay oo dhaho Cabdicasiis gabar yar oo idil ka qabatay wuxuu dhahay waxaan rabaa walaasha muna iigi walaasha way la soo orday waxay u keentay muna markay u keentay markii ay halo tiri wuxuu dhahay waxa maqlay inuu ninku soo doontay oo nin kale u joogtid anigana adigan ku jecelahay naag kale intana ma rabo waligeena waa kugu fikirayay ogow hadii nin kale aad guursatid ina aniga isdili doono oo nolosha qiimo aysan ii lahayn intaas waxay tiri markaa maqlay waa ku damiyay isla markaan ku damiyay walaashaydii telefoonka ii keentay waxay sameysay way carartay waxay u tagtay hooyaday iyo aabahay iyo walaalkay isla fadhiyo waxay dhahday walaashay waxa soo wacay nin wuxuu yiri iigay haddana isaga la hadlaysaa aniga markaan telefoonka dhameystay oo telefoonka isdul saaray oo soo jeestay gadaasheeda waxaan ka arkay hooyaday iyo aabahay iyo walaalkay oo gadaasheeda taagan walaalkay ugu qeyliyay wuuna iga xanaaqay wuxuu i dhahay nimana shukaansataa ragaa la socotaa anagana waxay tiri waxaa naga mamnuuca inaan rag la hadalno ama niman aan shukaansano mamnuuc ay naga tahay gabdhaheena waa la soo doontaa ninkii soo doontaa sharaf loo siiyaa
marka walaalkay markuu qeyliyey uu xanaaqay walaalkay wuxuu xanaaq badan yahay uu dhaqaajiyey waxa ii soo haray hooyaday iyo aabahay waxay iga sugooyiin ninkan wuxuu yahay iyo wixii dhacay inaan u macneeyo waxaan dhahay marka ani waxay tiri albaab ii furan ii been iyo hadal aan wax ku qari karo ma ii diyaarsano waxaan qarin meesha iyo aniga nin axriir lahay inaan la socod maba jiro markaas waxaan dhahay hooy aabo ninka ila soo hadlay waa hebel wiilka habrartay waaye waa Cabdicasiis ah wuxuuna ii dhahay waa ku jecelahay saan uu ii dhahay waxay tiri wuxuu ii dhahay dhana u sheegay waa iga aamuseen hooyaday markay waxay tiri waxay la hadashay habrartay waxay dhahday wiilkaaga Cabdicasiis maanta falkaas ku dhaqaaqay maxaa dhacay maxaa jiro anaga waa ogtiin gabdhaheena niman lama sheekaystaan marka waxay dhahday isbuuc ka bacdi waxaan maqlay habareertay waxaan maqlay inuu wiilka habartay isoo doonanayo isbuuc ka bacdi laakiin walaalahay waxay igu dhaheen wiilka habartay hebel oo Cabdicasiis ah miisaankiisa waa aad u cajiran yahay miisaankiisa 200 kilo gaaraan mana shaqeysta shaqo fiican kama shaqeeyo waardiyo waaye marka kaas meel ku geynayo malahan quruxna malahan lacagna ma haysto marka waxay dhahdeen waa diiday markaan diiday hooyaday iyo habareertay iyo gabdhihii asaga la dhashtay kulligoodba anigay dhinacayda iga galeen waxay dhaheen waa ku jecel yahay Cabdicasiis adigu ku dhimanaa adigu ka sheekeeyaa gabarta riyadiisa ah yani uu jecel yahay mustaqbalka inuu ku dhigto uu rabo waa adiga marka wuxuuna dhahay aniga haddaan iida waayo nolol iima taalo marka nafsi ha ka gelin ogolow wiilka habareerta waxay dhahday waa ogolaaday waa la igu daray waa isguursanay guriyaan tagnay guri markaan tagnay waxay dhahday hore uurka yeeshay waxaan ku dhalay wiil 6 bilood ka bacdi waxaan yeeshay uur kale waxaan ku dhalay gabar kadib marka waxay dhahday uur kale aan yeeshtay waxaan ku dhalay gabar intaas saddexda aad aan dhalay waxay tiri ninkayga wuxuu ahay qof culus oo fadhiga ka kici karin qof mar walba niyada ka jabsan tahay qof mar walba aaminsan inuusan dadka la mid ahayn oo isku kalsooneen oo xanaaq badan oo muxuu ahay isfahmaynin marka waxay dhahdeen maalmaha kamid ah waxaan aadnay ani asagii dhakhtarkii markaan aadnay dhakhtarkii wuxuu noo sheegay hadda adiga 2 sano ka bacdi 2 sano kadib inaadan waxba dhali doonin waxaa la leeyahay hadalkaas ninkii waxaa la dhahay adiga miisaankan ama cayilkan ku saaran wuxuu khatar ku yahay noloshaada ama ina ilmo daba dhashid marka 2 sano oo soo socoto waxa ilmo dhali kartid dhal wixii ka dambeeyo adiga ilmo inaad dhashid xogaa khatar waay iskuna day miisaankan ina iska ridid marka waxay dhahdeen ani intaan la joogay oo saddexda aan dhalayay dhibka aan ku qabay iyo rafaadka aan ku qabay iyo muxuu ahay asaga sidoo u xanaaqsan yahay mar walbo sidoo isku kalsooneen iyo sidoo u culus yahay meeshu fariisto ka kiceenin dhibka haysto aniga la qaybsada qof iyo kuma jirto dhakhtarkiina wuxuu dhahay waa ina adiga qalliin aad samaysid calooshan iyo xeerta laga camaliyeeyo oo laga jaro waxaan u sheegnay hooyadiis iyo walaalihiis waxay dhaheen qalliinkaas qofka dadka galo ma ka soo baxaan inta badan ma soo baxaan horey u dhintaan marka qalliinkaas ha sameynin sidaada ku noolow sidiisa kalentane maba ku noolaa karo maxaa yeelay wadnihiisa xeer badanaa saaran wax badan ma soco karo wuu neeftuuraa yani mana soco karo ma fadhi karo ma jiifi karo dhalmadiisana waxaa la khataray ku jirtaa marka waxaan kula taliyay ani oo ku garab istaagay inuu qalliinkaas sameeyo iyadoo cidiisii oo dhanne mucaarad ay yihiin waxay dhahday lacag aan aruurinay wuxuu gala qalliinkii waxay tiri qofka go'aankiisa qaatay oo ku dhiirigeliyay waxa ahay aniga maantana qalliinkaas hadduu fashilmo aniga waxa iga soo gaarayo yani ina aniga sabab u ahay dhibki soo gaaray hadduu ku dhinto ina aniga sabab u ahay adiga hadduu yani haddii camaliyadaas ama qalliinkaas ilaahay ku guuleeyo waa alxamdulilah haddii laakiin dhibaato ay kasoo raacdo aniga ayaa sababay marka waxay tiri intuu qalliinka ku jiray saacadihii iga maqnaay wadnaha gacanta ku hayay ilaahayow soo badbaadiyaan dhahayay ilaaha soo badbaadiyay marka waxay dhahday haddana markuu qalliinka kasoo baxay uu guriga kusoo laabtay waxa ay bilaabay haddana dhibaato kale asigii iska xanaaq xanuun meelihii laga qalayo xanuunayo
dhibka aniga la ogay tiri qof kale intuu ila og ma jirto. marka waxay dhahday cuntada waa u shiidaa, cabitaana u sameeyaa, cunto waxaan u sameeyaa saacidaysa asaga. marka waxay dhahday saan u saacidaayay oo u socodsiinaayay oo u jiidaayay oo dhahay fadhii ka kac oo cunto shiidana u siinaayay oo aniga nafteedii aan iloobay, ilmahaygii aan iloobay, gurigii aan iloobay, asaga oo kaliya aan ku mashquulsanahay 24 saac. waxay dhahday waxaan u laabanay dhaqtarkii markaan u laabanay wuxuu yiri sida aad ku socotiin way fiican tahay, laakiin xasaan ha ku socdo, sii wada dadaalkiina sii wada. marka waxay dhahday 6 bilood markii la joogay waxaa dhacay miisaankii 40 kiilo. 40 kiilo markuu dhacay sanad markay kasoo wareegteen waxay dhahday miisaankiisii oo dhan waa yani ilaaha ka riday. marka waxay tiri miisaankii oo dhan markuu degay oo yani jismigiisii qofka intii kiilo oo asaga laga rabay bas ay soo hartay, waxay dhahday alxamdulilah horta farxadda ilaaha noo soo celiyay. laakiin mushkilada haysata waxay ahayd in uu weli calooshii uu ka laalaado maqaar, maadaama hilib zaa'id ah marka hore uu galay. calooshii waxaa ka laalaada maqaar iyo qaybta xabadka siiba labada naas waxaa ka laalaada maqaar. labadaas qaybada marka waxay u baahan yihiin qalliin. marka waxay tiri internetkan galay waxaan raadiyay dhaqtar takhasus u leh si haragaas loo gooy lahay, waa harag laalaado, sidii loo gooy lahay, sidii muxuu ahay qalliin ama qalliin uu ku najaxo loogu heli lahay, quruxdiis inta ka dhiman loo soo celin lahay. waxay tiri saan u raadinayay waxaan ka helay nin dhaqtar ah oo ku takhasusay dalka Masar. saa internetka uga raadinayay qiimaha markaas loo baahan yahayna ma hayna markaan. waxaan ku fikir laakiin baabuurkiisa inaan gadno. marka oo soo bandhigay waxaan dhahay intaanu kaliya hadda noo hartay baabuurkan gadeynaa, ilmaha waxaan geynaa guriga hooyaday, waa inaan inta noo dhiman aan soo dhamaystirno. waxay tiri baabuurkii aan gadnay ani asaga fakataxaan dhahnay, Masaraan tagnay, qalliinkiyaa lagu soo sameeyey, haragiyaa laga soo jaray. waxay dhahday waa soo laabanay. markaan soo laabanay alxamdulilah horta waxay tiri haragii wuu baaba'ay, waa la jaray, meeshii la tolayna waxay dhahday way baaba'day oo uma eko meel la tolay oo hadda ka hor qalliin soo marta uma eko. waxay dhahday wuxuu galay jiim, wuxuu dhistay murqo, wuxuu cunaa cunto caafimaad leh. waxay dhahday baabuur kale inta haddana gadanay, lacaga aruurinay. markaan baabuurkii gadanay oo farxaddii noo soo noqotay oo suuqana soo wareejinayo, oo isku kalsoon yahay, oo ragga ficis dhex galaayo, oo hilibkii shalay ka laalaada oo dhan ka haray. waxay dhahday oo markaan wax alle waxaan helno, waxay dhahday sanad iyo 8 bilood markaan saas ku jirnay waxaa lagu soo booday oo dhintay aabihiis, ninkayga aabihiis, oo markaas oday duq aan ahayn, oo nin iska dhexdhexaad ah oo caafimaad qabay, oo hal mar lagu soo booday oo kaw dhahay. waxay u dhahay marka asaga marka waxay tiri waalihiis way kala guursadeen, guriga waxaa jooga hal wiil oo asaga ka yar, halkaas wiilna magaalo kale inta wax ka bartaa. marka wuxuu dhahay ani adiga hooyo ugu dhow oo daris la ah, waa inaan hooyo murugta hayso muxuu ahay la qaybsano ama aan ka dejino xoogaa ka khafiifino, garabkeeda aan istaagno. marka gurigeeda aan u wareegaynaa inta 4 bilood iyo 10 cisho oo asayda ay dhacayso. marka waxay dhahay guriga u soo wareeganay. hadda iyo haddana howl kale ay bilaabatay, habartay dada u imaanayo, dadkiina soo dhaweynaa 24 saac waa hagooganahay, ma labisto, isma qurxiyo, barfuun iskuma buufiyo, make up ma marsado. aniga ilmahayga habeenkii odagayga markuu shaqada ka yimaado hal qol aan ku aruursanahay. waxay dhahay soona soo galay, afurkii aan sameeyaa, suxuurtii aan sameeyaa. marka waxay tiri habartii way faraxsan tahay, caruurtii ku faraxsan tahay, subaxii bay soo kacayaan, way la baashaalayaan. marka waxay tiri murugtii iyo muxuu ahay iyo xusunkii hay waa la qaybsanay xoogaa. marka waxay dhahday asaydii ka dhacday. asaydii markay dhacday habartay waxay aaday gabadheedii oo markaas magaalo kala deganayd. annagana waxaan kusoo laabanay gurigeeni. ninkayga waxay tiri maasha allah wuxuu noqday qof shalay wuxuu ahay duugan oo xeer duugtay korkiisii iyo quruxdiisii, laakiin hadda xeertii iyo hilibkii marka ay ka dhacday, quruxdii dhalinyarnimadii uu la soo baxay, uu dhahay nin dheer wuxuu noqday nin dheer oo laba lafood ah, oo murqa leh, oo hilibkiisa adag yahay, oo wajigiisu qurux badan yahay, oo iftiimaayo, oo isku kalsoon, oo qoslaayo marka uu kusoo baxay dhahdeen. marka waxay tiri waxaan kusoo laabtay gurigii, ninkaygina shaqadii waardiinimadu ka baxay,
wuxuu shaqo ka helay hotel, wuxuu gacan yare u noqday ninkii xukumay hotelka dhan, u noqday gacan yare, iyo cuntooyinka marka xafladaha la qabo iyo dadka ka shaqeeya oo dhan wuxuu u noqday mudiir. laba shaqo marka uu ka shaqeeyaa hotelka dhexdiisa. marka waxay dhahdaan waxaa soo galo mushaar fiican bishii. anigana waxaan shaqo ka bilaabay dhahday madaraso agteen ahayd inaan macallimad ka noqdo. ilmihii xoogaa way noo koreen alxamdulilah. hadda waxaan isleeyahay hadda kabacdi waad yacni dhibkii idin soo maray iyo daalkii iyo muxuu ahay rafaadkii iyo ninkan ka daba orodkiisa hadda waa ka nasanaysiin. laakiin waxay dhahdeen markaan guriga usoo laabanay oo ninkan shaqo fiican helay uu arkay inuu qurux badan isku kalsoon yahay, waxay dhahday anigu iska ka dhex arkay. anigii waxaa usoo uray bakti oo kale inuu aniga caayo, jismigayga caayo, korkayga siduu egyahay caayo, inuu dhaho adiga isma daryeeshid, adiga ma qurux badnid, adiga waa arkay ninka inuu bedelaya. teeda kale wuxuu sameeyaa Instagram-ka, wuxuu soo dhigaa cuntooyinka uu cuno iyo murqihiisa iyo ku faano iyo inuu dadka cayilan wax ka sheego uu dhaho adinka cunto markay aragtiin isma celi kartiin, muxuu ahay cuntada isku daldalaysiin loo camalaa tihiin, waa inaa is saacidiin. waxay tiri asaga haddii qof is saaciday uu jiro asaga muxuu isku saacidi waay markuu 200 kilo gaaray muxuu isku saacidi waay. marka waxaan dhahay tiri saas ma ahan, adiga waa lagu saaciday, waa lagu garab istaagay. dadka saacid, dadka kalimo hadal macaan dheh, hadal dhiirigelin dheh, dadka niyadaha ka jibin. adba xaaladaa soo marta is og tahay. marka waxay tiri dib uu haddana uga laabtaa hadalkiisii. kadib waxay dhahday anigii ma ii arki karo guriga hadduu yimaado, ilmihii ma arki karo wuu dhibsanaa. waxay dhahday habeenkii markuu imaado wuxuu jiif ka dhigtay qolka fadhiga iyo ma soo dhaafo. saas wuxuu iiga haajiray tiri bil dhan uu iga sii maqaya. markaan guriga kusoo laabanay aniga waxaan isku dayaa marka inta kusoo laabtay inaan isqurxiyo, inaan muxuu ahay asaga hadiyad u sameeyo, inaan farxad geliyo. weli waa kasii daba carray dhahday anigoo awal is iloobay, ilmaheyga iloobay, wax walba dartiis u iloobay. almuhiim intuu ii abaalgudi lahaa uu dhihi lahaa adigana markaana adigana waqti lagu gelinaa, lagu farxad gelinaa, waxaarta lagu sameynaa, oo ani dhihi lahay isqurxi intaa ka qaldan tahay, muxuu saloonka aad isqurxi, labis ii keeni lahay, catare ii keeni. waxay dhahday asaga le isku mashquulsan, aniga dhanba waaba lasoo oran. marka waxay dhahday anigana Instagram aan lahay, waxaan bilaabay inaan dib u isticmaalo waxyaabaha ani markaas maalintii aan samaystay inaan soo dhiggo. waxay tiri waxaa igu soo darsatay gabadhi waa aqbalay, aad ugu faraxday markaa aqbalay. waxyaabaha ay soo dhigtay waa arki jiray. marka maalmaha kamid waxay soo dhigtay ninkeeda iyadoo ugu hambalyeynayso shaqadiisa iyo in kor loo qaaday shaqadiisa. markaas waxay tiri ninkeyga shaqadiisa xoogaasna kor loo qaaday oo darajadii hore darajo ka fiican la siiyey. marka waxay tiri waa shakiiteeda kaleento gacanteeda iyo waxay soo sawirtaa gacanta ninkeeda oo mar walbo iskor saaran. gacantan waxay ogtahay gacanta ninkeyga, dharka shaatiga ugu jiro waa dharkii ninkeyga. mar walbo gacanta ay soo sawirayso waa dhar aan aqaano iyo gacan aan aqaano, saacadda gacanta ku xirana waa saacad aan aqaano. marka waxay tiri waa shakiyaa mar walbo. haddana waxaan isdahaa ummaddu ilaahay way isku eg tahay iska dhaaf. maalintii dambe waxay soo sawirtay saacaddii labada dhinac ay u gedisay, fiidiyooga kasoo duubtay. waxay dhahday saacadan waa saacadda ninkeyga. saacadan markuu xirta aad iyo aad u jeclay gacantiisa. saacadan hadda way ka maqan tahay, meel ay jirtana lama oga. marka waxay tiri markay saacadda fiidiyoo ka duubtay oo marba dhinac ay ka sawirayso, waxay dhahday waxaa jiray xarafkeyga iyo xarafkiisa oo qaybta hoose ku qornay. marka waxay tiri xarafkeygii waa laga tirtiray, saacadda ninkeyga dhahday saacadan u eg tahay. marka waxay dhahday waxaa jirta xaraf oo aniga xarafkeyga magacayga ugu horeeyay iyo xarafka magaciisa ugu horeeyay oo saacadda ninkeyga ku qornaay. marka saacadda markay dhinacyada ka sawiraysay waxaa ii soo baxay xarafkii ninkeyga oo kor ku qoran iyo xarafkii aniga magacayga u horeeyay oo laga tirtiray meeshiisii, xaraf kalentan uu ku qoran yahay dhinaciisa. waxay dhahday markaan arkay qolkan ku orday, armaajadan furay, waxaa soo bixiyay saacadda ninkeyga markaas guriga tiilay. waxay dhahday waxaan arkay in xarafkeyga tirtiran yahay oo xaraf kale dhinaciisa ugu qoran yahay. waana ogaaday qoftan inay aniga isoo gaarsiinayso akhbaar ah inuu ninkeyga iyada qabo, dariiqad yacni reer magaalnimo inay rabto inay aniga isoo gaarsiiso ninkeyga inuu naagtan qabo. qisadana way dheertaa laakiin wax yaraa ka dhiman waa noo dhammaystiraa insha allah. marka waxay dhahday waa arkay saacaddeedaan soo arkay,
waa igu dhamaatay saacadii ninkeyga dabcan soo arkay waa igu dhamaatay naagta inuu ninkeyga qabo marka waxay dhahday intii qof bili aadan ooy kara waa iska ooyay meeshiidaan fadhiistay waa iska ooyay ninkeyga habeenka shaqada ka yimid marka waxay dhahday Instagramkii waxaan soo dhigay qoraal ah khiyaanada waxa ay tahay waxyaabahaas aan soo dhigay iyo inaa asxaabtii igu xirneed aan dhahay iga raali noqdo Instagramkayga waa tirtiraa oo Instagramka aan tirtiray ninkaan markuu soo shakiyay uu yimid anigoo bedelan oo maanta dhan ooynayay marka wuxuu dhahay wallahi uu dhahay horto kulli hadda waad ogaatay in aan inaa kala qabo laakiin wuxuu yiri adiga lugtaada ma gaarto qurux kuguma dhamo qiimana kuguma dhamo kartina kuguma dhamo laakiin ani waxa u guursadaa waxay tahay waxay iga faa'iideystay waqti aan qurux badnaaday waqti dhalinyarnimadeeda ii soo noqotay waqti quruxdeedii iyo jamaalkayga ii soo noqday waqti aan lacag haystay muxuu ahay ii gaaday oo anigana markaas aan u baahnaay qof hadalla macmacaan ii dhaho qof muxuu ahay qalbigayga soo jiito adigana mar walba waxaa ku mashquulsaneed horumar iyo ilmaha iyo aniga ugu mashquulsaneed naftaada xataa waa ilooday aniga marka wuxuu yiri hadalladii u baahnaay doqonnimadiisa fiiri hadal macaan wax ka fiican ninkaan la siiyay laakiin uma jeedo wuxuu dhahay hadallo macaan iyo waxyaabo u baahnaay oo qalbigayga dhaqaajiyay ee idhahda naagta sidaas darteedna waxaan isdhahay walba qof wixii aad soo martay aan ku aqoonin nolol la bilow oo sidan yani jamaalkan asna kaaga faa'iideysto iska gadgad camal marka saas ay igu dhacday ani marka waxay tir wax soo ortay waxa uu mid habartay oo asaga hooyadiis ah waxaan habarreysaan isaan aniga ma qabataa waxay dhahday gabadheeda dhageyso horta naagtaas lagula qabo anigu waa arkay way ii timid oo ii keenay adigana qurux kuguma dhama ii karti laakiin waxay dhahday gabadheedii aniga marka ila joogtay oo asayd ii saarneed waxaan arkay inaadan isla bisaynin inaa isqurxinaynin inaa iscarfinaynin naagtaasna dhar gaagaaban ninkeyga u gashataa waxaan dhahaa war soo dhawow ani waxaan kula jooga waqti asay kuu saaran yahay see agtaada ugu labistaa see agtaada dhar gaagaaban ugu gashtaa sideen agtaada iskugu carfiyaa adigoo murugaysan oo ninkaaga dhintay anima waxaan kula qaybsadaa murugta oo muxuu ahay waxaan yani kaa saacidaa saa uga bixi lahayd mase agtaada isku qalqaluuciya aan ku labistaan oo isku carfiyaa hawr maxaa kugu dhacay waqtiga ku jirta misilooda marka waxay dhahdeen waa ka tagay waxaan aaday guriga reerkeygii waxaan dhahay isoo doona way isoo dooneen waa baxay waxay dhahday muddo sanad ah ma isoo daba kicin wuxuu dhahay mana ku furaayay waqtiga adiga soo daashid soo noqo ana waxa ogaad inaan uur leeyahay uurkaygaan soo dhalay cideedii aabahay wuxuu dhahay ninkan inuu ku furo wuu diiday adiga inaan noqoto waa diiday ninkan waa yahay ilmihiisa u celi anigana waxay tiri ilmaha xaggooda la igama maro waxaan dha ilmihayga ma celinayay aabahay wuxuu dhahdaadan ilmihiisa siinaynin ninkaan ku noqo waayahay waxay tiri waxaan ku qasbanaaday inaan ninkayga kusoo laabto gurigaan kusoo laabtay guriga markaan kusoo laabtay waxay dhahday naagta aniga waxaan dhahay shuruudeedu waxay tahay inaadan iisoo dhawaanin inaadan dhaqan iyo naaganimo iyo waxyaabahaas iyo sida hore iga soo rajaynin ilmahan isla korsanaynaa masaariiftooda dhiibay ijaarkooda dhiibay ilmahaaga soo fiirsanay waqtiga harta guriga imaanay laakiin ani adiga wax cilaaqo oo isku leenahay ma jirto marka naagta ma u sheegin inuu ani soo celiyay bas naagta marka iyadana waxay ahayd naag weyn oo aniga iyo asagaba naga weyn xoogaa oo dhalinyaro way tahay laakiin aniga ahaan waa ka yaraa waxay dhahday marka waxay naag garoob ah oo laba cunug soo dhashay naag dabcan iyadu waxay ahayd xoog u haysanin si loo dalciyo ani xoog meynid asaanka dabcaraay marka waxay dhahday waxaa jiray dhul banaan oo asaga gatay oo markii dambe intay shirka ku noqdeen isla dhisteen dhismihii shirka ku noqdeen guriga la dhistay waxaa laga dhisay filo qurux badan waxay dhahday marka naagtiisa waqtiga uu ilmaheeda imaanayaan ilmaheeda way necab yihiin inay arkaan waxay dhihi jirtay guriga hooyada aad guriga hooyadiisu soo seexa jiray inta iyada ilmaheeda la joogaan marka waxay dhahday ilaahay amarkiis marka aan soo laabtay oo wax walba aan dadka ka ogaanaa inay guri isla dhisteen inay muxuu ahay noloshiisa dhanba koraan ka maqli jiray marka waxay dhahday markii aan laysoo celiyey maalmaha kamid isagoo guri joogo waxaan ka maqlay inay xaaskiisi kala maqan tahay safar ku maqan tahay markaasaan waxaan dhahay kaalay gurigaaga isoo tus gurigiisii aadnay guriga markaan aadnay guri waxay dhahday yani
quruxdiis aan la yaabis ani waxay tahay markuu isoo celinayo waxaa horta ka dalbaday inuu guri cusub ii ijaaro alaabtii horena ma rabo alaab cusub ii dhigo lacagna markaas uu isiiyey oo maseertir ahayd laakiin waxay tiri waxaasoo dhan waxaa qariyay naagtaan waxa loo dhigay iyo guri ay degan tahay ani marka waxay tiri gurigaa fiirfiiriye kadib waxaan dhahay waxaan rabaa musqusha aaday waxay tiri taakadeydii ayaa waxaan kusoo reebay musqusha waxaan ku fekeray iyadaba naftirkeeda sidii ani iisoo gaarsiisay inuu ninkeyga iyada qabo iyadana waxaan dareensiinayay inuu ninkeeda weli i qabo oon la ifurin haddana dib aan ugu soo noqday noloshiisa oo guriga reerkayga aana jirin marka waxay dhahday inkastoo qisada aad ay u dheereyd asxaabteyda karaali noqda waxyaabaha qaarkood oo muhiimka ahayn xataa waa ka tegay wallaahi marka waxay dhahday taakadii madaxa iigu xirneyd markaa musqusha u dhigay 2 maalmood ka bacdi safar kasoo noqotay way aragtay way isku dhaceen way isdagaaleen asagoo xanaaqsan u ii imaaday wuxuu dhahay waa ugu dan lahayd kasaa usoo dhigtay marka waxaan dhihi tiri aan uma dan lahayn musqushaan galay waana soo ilooba aniga waxaan u dan lahayn ma jirto marka waxay dhahday waxay tiri fur way ka tagtay gurigii reerkeedii aaday furiinay dalbatay ilaa waxay tiri kuma rabo kadibna maadaama guriga isla dhisteen oo labadoodaba qarash u ka galay waxay dhahday qarashkayga ii soo celi qarashna asaga ma haynin waxay dhahday marka siday yani maxkamad u wareejinaysay oo maalin walba waxay tiri dacwo looga haystay lacagteedu way ka qaadatay wayna iska furtay hadeertaan waxay tiri filadii anigaa degan oo hadda ku raaxaysano iyadii way ka baxday meesha had marka waxay tiri ninkeyga haddaan dhaho labadaada indhood isii uu isiinaa siduu ii jecel yahay laakiin ani waxay tiri qalbigeyga wuu ku xirmay qalbigeyga wuu xirmay ma dan iyo xaajo oon ka leeyahayna ma jirto hadeertaan waxay dhahday hilibkii hore ama cayilkii hore hadduu kusoo noqdo ma laga yaabo inaan saacido ma laga yaabo inaan waqti dambe iska geliyo halii hore taa waxay igu tahay khasaaro marka waa leeg sharafta qasada maantaas ay ku eg tahay gabadhan siduu ninkan yeelay ma istaahishaa iyo weliba sadohdeed sida ula dhaqantay maxaa yeelay sadohda dhowr bilood ayay la joogtay oo waqti ay gelisay oo murugta ay la qaybsanaysay iyadana hadalkaas ay ugu jawaabtay markii ninkeeda ku ogaatay inuu naag kalenta qabo marka ma istaahishaa gabadhan waxa ku dhacay ra'yigiina waxaan u baahanahay commentiga inaa igu reebtiin ra'yigiina fadlan qaybta commentiga igu reeba insha Allah qisadan maantaas ay ku eg tahay fadlan hadda ugu cusub tahay subscribe isaar videogane like isaar insha Allah in sii share garay asxaab fara badan sidoo igu gaaro intaan qisada mid lamid ku kulmayn waxaan kaga tagayaa saliga nabigeena suuban alayhi afdalu salaatu wasalaam allahumma salli wa sallim wa barak ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mac salaam asxaabta sharafta leh